mandiqadan geeska Afrika muddo dheer ayaa waxa ay ku nooleed colaad ka dhaxaysa dawladahooda waxaana ugu weynaa asaas ka ahaa Ethiopia maadaama ay xagga cadadkana ka badan tahay dhaqaalahana ka weyn tahay ayay colaad waxay kula jirtay dawladaha dariskeeda ha ahaato Eritrea Soomaaliya ha ahaato iyo xataa Djibouti iyo wadagala colaad iyo Eritrea waxyaalahaas oo dhan colaadda marka asal u ahayd muddo dheer oo taariikhina way jirtay colaadaas oo dhinacaas way jirtay fatrado isbedel la isku dayay oo boqortooyadii mar walbana asal waxa ka ahaa hadba dawladda Ethiopiaanka sidoo u dhaqaaqo mulugtii iyo boqoradii isku dayeen oo markaa inay furfuraadaan oo isla markiiba dhicisoobay ayaa taariikhda ku jira laakiin waxa weeye hadda waxa yimi wadankii Soomaaliya iyo dagaalka dheer Ethiopia dhexmaray iyo dagaalkii sanadaha faraha badan qaatay ee u dhaxeeyay Eritrea iyo Ethiopia iyadoo meeshii joogo iyo Soomaaliya burburtay kolkay Soomaaliya burburtay oo gobol kala noqotay Ethiopia dawladdaas waxa ay siyaasadeedu mar walba ahayd sidee aad isaga riixi lahayd khatarta kaaga imaanaysa Soomaaliya waxaana mar walba lagu eedeyn jiray rol iyo faragelin inay ku leedahay gobolada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed si aysan dawlad Soomaaliyeed oo hana qaada aan loo helin ama dawladda Eritrea dhulal bay ka haysatay oo si toos ah u haysatay marka waxyaalahaas oo dhan iyo cadaawadaas oo muddada dheer soo martay iyadoo la jooga ayaa isbedel degdeg ah sida dakaatiradu tilmaameen ayaa dhacay Dr. Ahmed Abi ayaa xukunka la wareegay sidaad la socotaan marka kolkii uu yimi waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaq aan dhihi karno isbedel doon mandiqadu inay sidaan aysan sii ahaan oo ay isbedesho colaadda ay iska bedesho isu bedesho wa iskaalmaysi iyo isdhexgal wuxuu bilaabay talaabooyin inuu qaado dhulkii ay isku hayeen qolada Eritrea inuu yiraahdo waan ka baxayaa inuu ka dago caasimadooda inay isu tagaan Soomaaliya inuu yimaado Djibouti waxyaalahan oo dhan isku furfuraan xoog badan ayuu sameeyay xataa wuxuu u sii talaabay sida Dr. Cabdiraxmaan uu tilmaamayo mandiqada geeska Afrika kuma xirna kaliya dhexdooda laakiin waxay xiriir toos ah la leeyihiin wadamada khaliijkana wuu tagay isagoo tusaaya mowqifkooda dhexdoodana inay gooni tahay wixii la kala faa'iideysan karaan in la kala faa'iideysto laakiinse uu yiri waxyaalaha qaarkood idinka qaadan mayno marka isbedelka nooca ee soo bidhaamay ee haddana dhaqdhaqaaqiisa uu socdo weli ma saldhigan laakiin waxa isweydiin badan oo cilmi baarisyo badan laga qoray shirar badan oo caalami ah laga qabtay aqoonyahanka mandiqada Soomaalidu degto iyo Ethiopia ba laga qabtay in laga fakaro maxaa fursado ku jira maxaa caqabado ku jira waxaan rabaa marka si kooban inaan ilaahdo يعني فرصة بكجيران مسكوبة جيران مس إسبدل كاس أو دولة دي ولقيت عن علاد نجد حيسي إن عن هذا السفرانو أو اللي يراهدو الصومالي دي ولي بقبلة الدجان أياجرا أو متقنا أون ولي مدح بنانة توسع أنا قادن ما وحنا نراهنا محا فرصة نوجر مس كل جد وشر إن الإسويديو وحنا ربع مركب قضبير إنه كسو كوبو هرتا فرصة إنع فرصتها إنع عقبتها وانسوكو بدونا أما وحيالها challenges كأه أي تهاي إن لقت اللعبة أما أي تهاي إن لحليو فرصتها وحقوق مهم سن هرتكو إن أمني إن لا يريو عراد قبلك هدي اللي يراهدو أن إسكاشنو أو أن نقالهن يوحين هاي سنحمران هدي اللي يراهدو وحي كدغان تهاي وحايرانا يا أمن الدرادة يعلادا يا يرانيسا تامرك فائدة وحاوجد جرتا دولة إثيوبيا ووجد جرتا صوماليا فائدة وجوين أي صوماليا مناطق ده أن وجوي رجرتا
waad aragteen لأن دولة إثيوبيا waxay xiriir toos ah ay la lahayd oo mar walbaba ay garab siin iyo jabhadaha Soomaalida la diriraya dawladda dhexe waxay ka soo socdeen oo ay ka soo dhaqaaqi jireen mar walbaba Ethiopia dawladda Soomaaliyana waxay garab siinaysay wax allaale ee wixii dawladdaas iyadana cagsi ku ah marka in la yiraahdo labadeena waa noo daran tahay haba la kala xoog badnaado laakiin waxa noo roon amniga waa wax weyn heshiisyada iyo talaabooyinka يعني la qaaday uu qaaday ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea waxay keentay in la ilaaliyo midnimada Soomaaliya oo sida darteed goboladii iyo dadkii u dusi jiray xagga inay yaraato saas darteed waxay soo celisay على الأقل waxay soo celisay in fursad lagu dhisi karo hay'adaha Soomaalida in la helo oo aan loo kala shakin waa fursad فرصة اللبات كجري كرتوحة ويه إن دولتها منطقة أما قبلكو أي إسكاكا شدان أرمها الدبادة سيدات أكتهين عالمك وحا كجري لولا حق مصالح ده European Union waxay leeyihiin masaalixdooda si wada jir ah ay u dhow ilaashadaan علاقاتكooda dibadda waxyaalo ay ka ilaaliyaan ayaa jira marka inay mantiqadaano group isku xiran oo noqota oo difaacata arrimaheeda dibadda waa fursad oo meesha hadii si dhab ah oo iskaashigaas iyo isdhexgalkaas uu u noqdo waa fursad kale oo jira waxaa jira fursad kale oo ah isdhexgal bulsho iyo kala faa'iideysi wax la yiraahdo dhaqan inay u ka dhici karo لأن الدولة كستبوا وحيلادها نقموا وحيلادها حضارات كإن أي كلا فائدستان أي اللوباعية وحيلتها الصومالي ده ما دام أصيل أي كتها حضارة الإسلامية أي مسلمين يهين أي دتك أفريقيا دولة فربضا إسلام كإيجيين دولة ده هاد إثيوبيا أي سيدا أبلارن كان عدد كبدن أغلبيتنا اللي يراهدوا مسلم oo dad masiixi ayaana gacanta ku haya waxay fursad siinaysaa Soomaalidu in ay si xor ah ay u tagi karaan dacwadii iyo diintii iyo la gaarsiinayna ay noqoto wax ama xoojinayo yaani thaqaafadaada Ethiopia dhexdeed inaad xoojiso marka wixii dhaqana mesela xaq shaqo ha noqoto xadaaraad kale in la kala faa'iideysan karo markii uu dhacay waa la socotaa Fathul Makkah intaysan dhicin heshiiskii sulh Xudaybiya waxay keentay isdhexgalkii inay dacwadu ku intishaartay iyadana waa faa'iido kale oo dhici karta inay ku jirto waxa kale oo jirta oon oran kara suuq dhaqaale oo weyn ayaa meesha ka soo baxaya Ethiopia oo lagu qiyaaso hadda 100 ilaa 120 milyan iyo mantiqada Soomaalida degto oo la yiraahdo ugu yaraan 20 ilaa 30 kama yara Soomaalida marka laga fiiriyo manaadiqdeeda ay degan tahay ha noqoto tirakoobka meelaha qoran tirakoob sax ma aha berigii ugu dambeysay ee la qoray weeye adduunyadu way koraan laakiin anagu ba korna sax ma aha marka iyaduna inta ay tahay marka ugu yaraan wax ku dhow mantiqada marka lagu daro Eritrea iyo Kenya iyo waxa wax gaari kara wax 200 oo milyan oo kale 200 ku dhawaan kara oo dad marka intaas haduu iskaashi dhaqaale oo dhexmaro caalamkana wuxuu noqonayaa meel uu soo aado iyaga dhexdooda haday kala ganacsadaana aad bay uga faa'iidayaan Soomaaliduna waad la socotaan xagga ganacsigu aad bay ugu firfircoon yihiin marka waxa way waa fursad ganacsi ayaa jiraya caalamkana kugu soo xirmay marka shuruud bay wada yeelanayaan caalamka ay la ganacsanayaan iyadan waa fursado kale oo ku jira fursadaha iyo qeyrkood ayaa ku jiri kara haday isdhexgal iyo iskaashi u dhaco maxaa hadaba inta haddaan kaga soo gaabsado maxaa haddana caqabada jiri kara waxaas oo bidhaankaas wanaaga mooye ma waxa dhici karta makhaatir ama khataro ay tahay in laga feejignaado miyaa jira horta waxyaalaha waxa ku jira mantiqada maadaama ay ballaaran tahay Soomaaliya oon lahayn dawlad xoogan oo midaysan dadka aad la tartamayso ama albaabadaada u furayso waa dawlad weyn oo soo jireyna oo boqolaal sano soo jirtay
oo wadamada lagu tiriyoba yani xataa markii Yurub dhulka gumaysanaysa ayan gaarin dawladdaas oo xadaaradaas leh oo 120 milyan iyo adiga oo kala daadsan gobol kala ah khilaafaad idin ka dhaxeeya dawladdiinana aysan xooganayn taa waa challenge way marka albaabada haddaad tiraahdo aan wada furo waxa weeye waxa dhici karta in lagu qarqiyo ama lagu maasheeyo ayaa dhici kara waata labo inaysan diyaarsanayn waxyaalaha la yiraahdo bina taxtiya ma waxyaalihii markii isdhexgalka laga faa'iideysanayo dariiqyada dekadaha waxyaalaha asaaska u ah kobcinta dhaqaalaha oo aanan Soomaalida manaadiqdu ay degto aad u diyaarsanayn iyadana waa waxyaalo kale oo challenge ku keenaya oo iyaga kuwoodu uu ka diyaarsan yahay marka saas darteed waxa dhici karta markasta privilege inay iyaga ka yeeshaan waxaa jira oo kale inaysan diyaarsanayn qawaaniintii hagi lahayd isganacsiga iyo isdhexqaadka hagi lahayd oonan ku diyaarsanayn maadaama dawladdii ay burburtay oo muddo 30 sano ku dhawaada ay dawlad dhexe oo Soomaaliya ay burburtay isan jirin saa darteed waxaad u baahan tahay dib u habeyn qawaaniintaada xagga ha ahaato kuwa fiskalka ama canshuuraha nidaamka system bankiga ee dawladda ay leedahay waxyaalahaas oo dhan marka dawlad xoog badan oo kugu soo furmaaya dhaqaalahooda ayaa doqonaysa كوادرتا يدنا وحكلو سوقلايا دتك كوادرتا أما أقويهن كجوجا أو يعني آدن ديارسن وديار جارين أرنتا مركز شير مالين دود لجو قبنا جيبوتي نين دكتورة أو صومالية أو نكترسن حكومة إثيوبيا فدرالكا أيا وحى أوت المامي إن 500 oo kun oo arday oo ka soo qalin jabiyay jaamacadahooda oo loo laayahay meel ay ka shaqeeyaan ayaa jira 500 oo kun haday kugu soo faafaan adiga bataada aad la tiig darayd oo la yaani itaal darayd oo shaqo la'aan ay ku haysay kuwa man power oo aad raqiis ah u yimaado oo wada asaatida ah ku yimaado suuqul amalka waxa weey adiga saalixaaga ma ah kuma diyaarsana ugu dambeyn waxaan dhahayaa isbeddelkan oonan wali saldhigan isbeddelka waxa waaye wuxuu ku socdaa doonis ra'iisul wasaaraha ayuu ku socdaa iyo orod laakiin waxa jira wax la yiraahdo dawlad camiiqa dawlad oo hoose ayaa jira oo dhisan oo intaas oo sano jiray marka xataa marar waa la isku dayay in la dilo waa la isku dayay marka isbeddelkaas oonan wali xoog u saldhigan iyadana waxay keenaysaa waa challenge kale oo ku keenayo inaad ka fiirsato yani iskaashiga ma xuma yani wali laakiin uusan saldhigan haddaba maadaama waxyaalaha caqabadaha ama challengeskaas ay yihiin maxaa xal ah waqtiga maxaa xal ah oo la oran karaa afar qodob baan isiri inay muhiim u tahay in horta koow la soo dhaweeyo wax la yiraahdo cooperation in la iskaashi la soo dhaweeyo oo laana adduunka yani inta lagu xaliyay iskaashiga ayaa ka badan kana xoog badan kana waaritaan badan wax colaad lagu xareeyo marka iskaashiga in la soo dhaweeyo laakiin aan mandiqada lagu degdegin integration ama isku dhexmilan degdega aan la sameyn laakiin iskaashiga iyaga xaqooda uu ka socdaa maalin walbaba waxa waaye sibirka waa soo dhoofiyaan jaadkay noo soo dhoofiyaan khudaar bay keenaan manaadiqda waqooyiga iyo meelaha oo kala keenaan xaqooda uu ka socdaa laakiin anaga xaqeena maxaan geenaynaa in laga fakaro la yiraahdo horta tallaabo aan qaadno oo marka cooperationka in lagu bilaabo oo marka tallaabo loo bilaabo labo in la dhiso taa anaga noo taala dawlad Soomaaliyeed oo tayeysan oo saraynta sharciga uu hogaaminayo oo shuruucdeedana diyaarisa dawladda Soomaaliyeed iyadoona si xoog taas loo dhisin integration xoog badan lama geli karo laakiin cooperation waa la sameyn karaa oo labada dhinac ay ka faa'iideystaan saddex in si gooni ah ay isku kaalmaystaan gobolada Soomaalida kala duwan dawladaha ku kala jireen
siyaasaadkooda ha kala duwanaado inay cunsurka Soomaaligu iskaalmaysto oo si gaar ah kadib marka ay xalliyaan khilaafaadka u dhaxeeya taa waa muhiim idinka oo marka Soomaali oo midaysan macnaha midaysnaanta lagama wado waxa dhici karta Djibouti waa dawlad gooni ah Soomaalida Kenya dawladdaasi ku jirta 8 milyan oo kale waxay ku dhex jiraan Soomaalida Ethiopia macnaha midaysnaanta waxa weey siyaasadooda inay mideeyaan oo ay ka leeyihiin seen oo la dhaqanaa Ethiopia iyo dawladaha naga baaxadda weyn inay mideeyaan oo taana in la helo oo taana marka waxa asaas ka ah khilaafaadka in la yareeyo ka dhaxeeya waxa ugu horeeya Somaliland iyo Soomaaliya inteeda kale khilaafkeeda in laga shaqeeyo si loo yareeyo iyadana waa qodobka afaraad aan isleeyahay ku soo gunaanadaha iyadana waxa muhiim ah in isku furanka iyo isdhexgalka mandiqada geeska lagu dhiso cilmi baaristaas oo ay hagayaan khubaro Soomaaliyeed ay hagayaan annaga ahaan markaan ka fiirino ka dawladdeena waxa la rabaa haday Djibouti tahayna khubaro ay hagaan oo la yiraahdo intaasaan iska kaalmaysanayna horta koo talaabadaas sanadaha kadib haddana talaabadaasaan qaadayna adduunka ma jiro wax la yiraahdo hal mar ayaa albaabka la furaya waad aragteen Europe ee sida markay isku biirayeen oo ay noqonayeen hal baas yani waxa lagu gudbaa hal lacag aan samaysano hal goormay gaareen waxay gaareen sanado badan ayay gaartay oo maalin walba lahaa wali ma gaarin talaabada aan qaadno marka dawladihii inay soo dhisanto Soomaaliya qolo walbaba inay samaysato maalin walbaba talaabada la qaadayo si cilmi baaris iyo gudiyo haga arintaas oo khubaro waa in la helaa oo dawlad kastaba iyo mantiqad kasta oo Soomaali si looga galgaaro gunaanadkii iyo soo gabagabayntii waxa weeye iskaalmaysiga iyo waxay dan ugu jirtaa mantiqada oo idil khaasatan Soomaalida dan baa ugu jirta dan weyn baa ugu jirta laakiin waxa la rabaa inuu cilmiyeysan yahay oo albaabada hal mar la furin si looga talaabo cabsiyada iyo baqdinta jirta si aysan mawjada aysan noo hafin iyaga oo aanan hadda waxba jirin ayaaba hadda xuduudaheena ay furan yihiin xuduud fur yani ma jiro maalin walbaba naloo soo talaabaa waxyaalo fara badan ayaa jira isbedbedelka oo aan kan si fiican aan oga sugno isbedelkaas inuu saldhigto macnaha waan furaynaa albaabka iskaashiga cilmiyeysan laakiin isbedelkaas naftiis wuxuu u baahan yahay sababtoo ah wali manaadiqda Soomaalida Ethiopia iyo Oromada iyo dagaalaha ka dhaxeeya wuxuu u baahan yahay waxaas oo dhan in la xalliyo si cilmiyeysanna la isku kaalmaysto oo yani ilaa laga gaaro mantiqadan oo fidda oo ballaarata laana ogaada mantiqadan kullama ay fiddo islaamka ayaa sareynaya sababtu waxa weeye waa mantiqa dacwada islaamku ay soo gaartay inta aysan Madiina gaarin way xaba waa beel uu nabiga uu ku tilmaamay xabasha ma taqaana malik fiican baa jiray xaqiisa aada xaqaas markaas waxa weeye hadii islaam Soomaali hima sare la helo midaysan la helo dawlad fiican la helo waxa la og yahay islaamka ayaa mantiqadaas ku xoogaysanaya waa faa'iido ayaa ugu jira xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeed iyo xaq amni waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh